السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا آذين مهتدين. إله نغدك كوها نوصن تدكنا هنونية دمان تدكا سوماليات برنامج كقفاعو كداوانا سومالي كنديان تي في كندا جيسانا يا راديو بورمي سي كي ام اس 102.7 اف ام مانتو مالين سبتيا bisha August 2025 waxaan halkan uga hambaliyeynaynaa dhammaan maamulka Puntland oo 27 sano jirsaday. waxaanu leenahay waxaan Ilaahay uga baryaynaa in ay noqdaan sidii awalba ay ahaayeen oo ay meel fiican ka istaagnaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed, iyadoo aan ognahay halgankii dheeraa ee la soo maray Soomaali iyo midnimadeeda sida ay u raadinayeen. wali waxaanu leenahay inaanay ka quusan. waxa kale oo aan halkan hambaliyo uga diraya maamulka cusub waqooyi bari oo isna aad ogeydeen halgankii uu soo galay. waxa aan leeyahay dad badan oo ay ka mid yihiin Somaliland iyo dad kale iyo dadka degaanka intaba. ilaahay wuxuu leeyahay asaa an tuxibu shay'an وهو شر لكم أسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شيء باد جعلاتها شيء قاسي كوي هاي شر، شيء باد نعباتها شيء قاسي خير كوليه. waxa aan leeyahay dad badan oo hadallada ka baxaya ay tahay dibsi ay dibsanayaan maamulka waqooyi bari inay u arkaan maamul soo kordhay oo midnimada ummadda Soomaaliyeed qayb weyn ka qaadanaya, bridge-kii midnimadana ah. runtiina annagu haddii aanu nahay Awdal State waxaanu aad iyo aad ugu hambaliyeynaynaa wanaagga iyo maamulka ay heleen waqooyi bari. waa mid annaga oo kale naga mid ah oo ay heleen. waxaan dadka barnaamijka ku soo qaadanaya maanta waxa hadlay maamulka Somaliland. bal waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay nala daawada wasiirka warfaafinta Somaliland. golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland oo isugu yimid shiraan caadi ahayn waxa ay si kulul u dhaleecaynayaan falagelinta ay dawladda Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay ka wado deegaano dhul ahaan iyo taariikh ahaanba ka mid ah jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka mid yahay bariga gobolka Sool. shirkan oo uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro dood iyo falanqayn kadib waxa uu cadaynayaa kow iyo rabitaanka dadkeeda xuduudaheeda iyo rabitaanka dadkeedu xuduudaheedu waa kuwii ay dunidu aqoonsaneyd 1960kii ee ay gobonimada kaga qaadatay boqortooyadii Ingiriiska. xuduudaas oo la aqoonsan yahay kulana midowday dawladdii Soomaaliya ee xorriyadda ka qaadatay Talyaaniga isla taariikhdaas ka hor intii aanay mar kale dib ula soo noqonin 30 sano kadib burbur ku yimid iyo fashilaad ku dhamaatay midnimadii dawladdii ay la midowday. sharci darrada qodobka labaad waxa weeye sharci darrada falalka Muqdisho ka wado dhul ka mid ah dhulka Somaliland. xukuumadda Muqdisho iyada oo si cad ugu fashilantay gudashada waajibaadka ka saaran dib u dhiska iyo nabadeynta gudaheeda waxa ay hadda raadinaysaa gabood siyaasadeed ay xilligan doorashooyinkeeda ugu soo dhuumato oo ay ku mashquuliso indhaha dadkeeda iyo beesha caalamka oo dadaalo nafhur ah gelisay dib u dhiska Soomaaliya. waxa ayna dhaqaalihii iyo hubkii lagu siiyay dhismaha dawladnimadeeda u adeegsanaysaa inay colaad ka horiso deegaamo ka tirsan jamhuuriyadda Somaliland. qodobka saddexaad israacsanaanta dhuleed ee jamhuuriyadda Somaliland. gobolka Sool, Sanaag, Togdheer ee ay Soomaaliya ku hadaaqaysaa waxa ay aan qaybsami karin ka yihiin dhul qarameedka jamhuuriyadda Somaliland. dadka deganina waxa ay sees iyo hormuudba u ahaayeen bulshadii sida xorta ah go'aanka qarannimada u gaadhay kadibna si dimuqraadi ah uga mid ahayd aftidii madax bannaanida jamhuuriyadda Somaliland. dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya waxa aan dadka la wadaagaya in badan dadku ma oga Somaliland dadka ay adeegsadaan dadkii degaanka maaha. waxa ay wax u dhiibaan xilal oo ay adeegsadaan
marti sideedabana waxa ay Soomaalidu hore u tiri marti edab leh waxa aan uga jeedaanay waxa weeyaan wasiirka warfaafinta aad arkaysaan qaylinaya dagaankii uu ka yimid waxa weeye kilinka shanaad meel sheedeer la yiraahdo ka yimid maantana dadkii Itoobiya joogay ee beesha uu ka dhashay qaylada ka baxaysa iyo madaxweynaha kilinka shanaad dhibaatada uu ku hayo iyo wixii ku dhacay waxay ahayd in uu arinta ka shaqeeyo oo uu dagaankiisa ka hadlo meel midnimo u baahan in midnimo laga shaqeeyo in uu taariikh gabowday ka sheekeeyo waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagaya oo ay tahay 1884 waxay maalintii Baarliin Afrika la qaybiyay xuduudaha aad maqlaysaan ee uu ka hadlayna waa xuduudihii gumaysigu dhigay way xuduudaha aad maqlaysaan waxa laga dhaxlay gumaysi maanta Soomaaliland waxay rabtaa inay gumaysato nimanka la yiraahdo dhulbahanto ka xoroobay wali waxa hoos jooga beeshii Gadabursiye Ciise waxa kale oo laga dhaxlay xuduudaha uu ka sheekeynayo kala qaybsanaan maanta khayraadkii dadka oo la qaybsanayo oo reer ku intifaacayaan maxaa la magacaabay 102 bosishan baa la magacaabay ree awdal shan baa laga siiyey alaysa minkum rajulun rashid waxaasa waxaanu dad ugu yeeri karno anaguna matala wasiir warfaafineed way yuu u hadlayaa inuu sheedeed ka hadla way dibta ugu weyn ee haysatana waxa weeye waxyaalihii xuduudaha 1884 laga dhaxlay ayuu ka sheekeynaya in badan dadka waxaan rabaa inaan uga warramo Gadabursigu wuxuu dagaa Itoobiya Gadabursigu wuxuu dagaa Djibouti Gadabursigu wuxuu dagaa Soomaaliya in badan boorama waxa buuxa dadkii Itoobiya ka yimid waxayna ka yimaadeen waa gumaysi dadku mar hadduu gumaysi ku soo koro oo meel gumaysi ka yimaado dhaqamo aanu lahaan jirin dadka kale ayay keenaan awdal waxaan in badan dadku ay u arkayaan ee la leeyahay dad sidaas jooga ee aad arkaysaan ee guul wareenta iyo u baran tahay marka horeba waa dadkii asalka Itoobiya ka yimid waxna lama weydiiyo dadkii dagaanka deganaa ee beesantay dhulka deganaa waxba lama weydiiyo way og yihiin aqliga ku jira iyo dagaan ahaan waxay yihiin laakiin nasiib darradu maxay tahay waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagaya meel walba haday noqoto kilinka shanaad haday noqoto Muqdisho Puntland Somaliland intaba waxay ahayd in nin lagu doorto Soomaaliyeed midnimadiisa iyo isku haynta bulshada in lagu doorto way reer in lagu doorto ma sharci iyo dagaanna in la kala yeesho maahan Soomaali oo xuduuda maanta nin Itoobiya ka yimid oo nagala hadlo waa nasiib darrooyinka maanta ku habsatay weeraree awdal iyadoo meeshii midnimada ay tahay meel ka shaqaynaya reer inuu noqdo dawlad ila reer weeye yaa haray reer baa haray reer dawlad ma noqon karaa qabiil qaran ma noqon karaa ma noqon karo inay afayeen ka dhigtaan nin marti ku ah deegaanka oo awdal marti ku ah Itoobiya ka yimid maantana uu dhawaaqo dad dameerkuba uu dhawaaqaa karaguma uu dhawaaqaa wax macno oo ay sameynaysan male waxa leeyahay dadka deegaanka gobolka awdal waxa idin soo socda oo idin imaanaya maamulku idinka iyo beesha Ciise insha Allah dhawaan ku bishaaraysta waaniga Tufan Tira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan